بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتيدا كحرن برتيدا يوتيوب كهنا جافولي soo dhawaada bilis janaalka hani jaaful haddii aa ku cusubta waxaan kaa codsanayaa inaad sabskaraab ii saarto laag aa ii dhahdo asxaabtaadana usii gudbisay si ay uga sii faa'iidaystaan insha allah hore hadday aala joogtana boqolkiiba boqol waa ku mahad celinaya sida quruxda badan mar walba ay la socotaan kommentiyada quruxda badan ay ugu soo qortaan laagtana ay ugu saartaan marka soo dhawaada walaashin han jaaful maanta rootigaas aa ujeedaan quruxda badan idiin sameysay maalmahan waa kala maqneen sorry xoogaa mashquul yara i galay oo maxay ahaydey markaa hadda ka bacdi insha allah fiidiyodan joogteen oo ahaan doonaan haddii allah uu dal raali ka noqdo rootigaas aa ujeedin maanta idiin soo sameeyay marka aadka u quruxda badan walaahi mashquul zaa'id ah hadda fiidiyoganito wuxuu yaalay muddo 2 isbuuc ah inaa soo jarjaro cod soo saar oo soo geliyo ugu qaadatay marka iga raali ahaada waa idiin soo gelinaa hadda ka bacdi muuqaaladii oo maxay ahayd iska xigo insha allah marka rootigan quruxda badan sidaan u sameeyay kusoo dhawaada insha allah kana faa'iideysta meeshan waxaa ku haystaa sisintaaneti marka aan isticmaali doono gadaalan ka isticmaali doona insha allah rootiga ku qurxin doonaa sidoo kale waxaa haystaa xabad soodo iyadana aan soo maxay nadiifiyo oo soo haadiyo qashinkii waxaas kasoo bixbixiyay sokor haystaa 3 qaando waxaa sidoo kale haystaa 1 qaando oo buuxdo oo leebita ah miisti ah subag sixin ah meeshaas ku haystaa oo subag lo ah sidoo kale waxaa haystaa bakeeri buuxo oo zabaadi ah iyo bakeeri buuxo oo caano booro oo qandac ah marka soo dhawaada intaan ka sameyn doona ukuna iyadana la jirto 3 saxabo ukunta qaabka aan ugu kala dari doono waa idin sheegaa insha allah marka asal socono baaquliga meeshaan ku haysta baaquligan aan rabo markii cajiinka ku sameeyo oo maxay ku qaso waxa kusoo shubanayaa bakeeriga buuxo oo caanaha inay qandac yihiin muhiim waaye qandac kasoo dhig marka waxa kusoo shubanayaa qaando buuxda oo yeastida ahayd ama leebitada ahayd intaan isdhex qaadsiinaya ka bacdi waxa kusoo darsanayaa caano fadhiga ama yogurtka ama zabaadiga sida u taqaanidbo sidoo kale waxaa kusoo darsanaya sokorteeni insha allah 3 qaande ahayd waxaa kusoo darsanaya bakeeri haafkiisa oo ah subag sixin oo la ah aad u caraf badan wax yar oo cusub ah disa ku siima faahtima ka badan cusbada wax yar leh ku daray marka ukunta waxaa sameyn doonaa 2 xabo waxaa sameynaa shaharka aan ka reebanaya xabka bisa ku daraya ujeedina umaleena 2 xabo shaharka meeshaas ku shubtay xabadana waa ku wada daraya insha allah marka saas aan u sameynaya soo dhawaada intaan isdhex qaadsiina hadii Allah awooda u raali ka noqdo marka isdhex qaadsiina burkeena insha allah ku soo darsan doona burka waxa ku soo dari doona insha allah 5 koob oo buuxdo ama 5 bakeeri shaah oo guri walba yaal waaye oo shaah lagu cabo waaye marka waxa waa bakeeri walba markii aan ku soo daro waa garaacaya qaandadana ku garaacaya intuu si fiican isku dhex qaadayo kabacdi markuu xoogaa soo adkaada gacanta ku qasaya laakiin intuu saan u jilicsan yahay qaandadaas isticmaalaya insha allah si fiican in iyo garaacaysa iyada marka si fiican u soo rifaaqa bur waa ogtihiin xoog raba in la galiyo waqti aasiis ugu yaraan 15 daqiiqo 10 daqiiqo waa ina maxay cajiinta oo si fiican oo cajiinta marka insha allah hadda waa daboolana meel aan dhiganaya muddo 20 daqiiqo ayuu meel ay aalayaan isku soo noqonayna insha allah 20 daqiiqo bacdi saan ku soo baxay wuu jilicsan yahay oo jeedin rooti burkiisa mar walba ku jilicsanaado marka saan u jilicsan yahay 20 daqiiqo bacdi waxa sameeynayna saxankan waa non stick laakiin subaga iska marinay calasha ihtiyaad inuu san iiga dhigin lacala subaga mariyay brush ku mariyay marka xabad rootiga ahayd oo soo dhax dhigay burkiyo dhan soo dhax dhigay waa ku fidina insha allah ilaa geesaha ana gaarsiina marka si fiican ugu fidiyo asal arkeen waxaan ku sameyn doonaa insha allah marka 2 ukun oo shaharkii ukunta aheeda maxay isdhex qaadsiiyay markaas soo marinaya insha allah geesaha si fiican uga soo marinaya oo ku soo wada dhameystiraya 2 xabo ukunta marka ku soo dhameystiro si fiican u soo wada mareen waxa isticmaalaya xabsuud waa ognahay waa daawo sidoo kale sisinteena ku soo shubtay labada marka ku soo shubtay marka waxa sameynaya brushka soo qaadanaya muraashka hadda ukunta ku maray jug ku siinaa si cajiinka iyo suuqa yar qabsadaan oo dhoot markuu foornada ka soo bixi oo iiga daadaadan markuu gudaha u galgalinaya cabaar marka hadda waxa sameynaa meel aan dhigaya 30 daqiiqo oo meel yaalaya foornada iska gali laakiin ma ku daarin 30 daqiiqo markuu ku jiro uu soo fuuro ka bacdi aan daara 170 ugu dusha iyo hoos aan ka daaray
dusha markuu iiga soo guduto waa iska damiyey adi 5 daqiiqo 7 daqiiqo camal dusha iigu soo gudutay waa ka damiyey kabacdi hoos bisa ku dhaafay marka aan kasoo bixiyay asagoo kulula dusha maxay ahayd waxaa ka mariyay buraashka oo subaga aan uga marmariyay sababta uga marmarinayna hadduu qalal hadhowtu wuxuu sameynayaa gudgududka iyo maxay ahayd sisinta iyo maxay ahayd xabasooda dhan iga dadaadanayso markuu qowso intuu kulul yahay subaga mari marka waa kaas waa soo gadistay waa ujeediin amalena meelna ma uga dhagin saxanka because of saxanka waa non-stick ma qabsanayo ujeediin marka wuxuu kusoo baxay qaab suuf ah oo qurux badan waxaa sameynaya marka afarta dhinaca kasoo jaraya sababtoo ah waxaa rabaa inaan fargas u isticmaalo intaana meel aan dhiganayo iyagana waa la cunaa leh oo yacni ma la tuuraayo laakiin waxaa rabaa adinka inaan tusiyo qaabka afargeeska uu jarjaraayo marka mididaas afka leh oo iyadana dheer oo mida keega aan isticmaalo ah ayaa maxay ku kala jarayaa soo dhawaada marka khiyaarteeda waxaa rajeynaa inaad tijaabin doontaan oo maxay feedbackna commentiga ugu soo sii doontaan biliisna janaalka subscribe ta halii saaro 65% asxaabta daawad waxaa la subscribe ma saarin maxaa dhacay waxa ma idinka dhibeyso bartay rugudan ee farta dhag ku siinaysa hore uga sii soconaysa insha Allah anigana faa'iido badan ay tahay way dhiirigelinaysaa in fiidiyooyin badan idin soo geliyo waxtar idin leh insha Allah oo ka faa'iideen maxay mar walba ku dadaalaya hadii Allah uu dal raali ka noqdo soo adinkan iyo kaalmeey ina maxay ham fiican si yeesho oo maxay akala faa'iideysanaana idinka faa'iideysta adikana iga faa'iideystiin oo maxay wax waqtiga soo gelinaysa waa soo duubeysaa maxay waa soo jarjaraysaa codad soo saaraysaa yani waqti badan ay galayso ina dhiirigelisiina maxay jeclaan lahay marka labada saxan soo decoration gareeyay oo maxay sokora kusoo decoration gareeyay kulliis waa idin tusi doonaa qaabka u sameynaya hadda waqti ay hay marka saas daraadeed ma idin soo duubin iyo raali naqda way fududahay laakiin naqshada aad u fudud waa qaasatan tan hadda qaandada iyo farkeetada qaandii farkeetada meesha dhigaysaa sokor budo ah caanimo kusoo shubanaysaa kora jag ugu siinaysaa uu ku soo baxaya ma fahanteen marka insha Allah taala anu sameeyna waa idin soo gali doonaa insha Allah burkan anu suqaar u isticmaalayo oo qaab kale u sameeynayo insha Allah rootigan waa idin soo gali doonaa waa ka faa'iideysan doontiin hadii Allah uu dalo raali ka noqdo laakiin caaw waxa u isticmaalayna anaga malab u isticmaalayna macmacaan caaw u isticmaalayna because of ani ahaan oo kale hadda malab kaligiisna cun ma jecli xabsooda kaligeedna cun ma jecli laakiin labadooda markii hadda inta ku isticmaalay waa cuni karaa daawadana meeshaas ku helaysa oo waa ognahay xabsoodii malab waxa shaqada ay qabtaan Soomaha marka adoo daawadaadina cunaysid maxay ahaday cashana ka dhigo ama quraac ka dhigo ama casri ka dhigo qaab walba ku anfacaya marka dusha uga shubaneena marka aad dusha uga shubana ka bacdina waa ku cuneynaa ilmaha kaleeto maamada waalidka kaleeto aad uga helayaan markaan waa qof kasto ka helayso ilmaha kale subaxdii bareega aad ugu ridid gasac yar oo u qaataan ma sha Allah waan facaya sidoo kaleeto marka insha Allah waxaa rajeynaa inaad sameysan doontaan janaalka subscribe ay soo saari doontaan hadii Allah uu dalo raali ka noqdo soo dhawaada marka waxaa idin leeyahay kasoo faa'iideysta insha Allah taala marka inta ku kulmi doono فيديو كليتو oo kan lamid ah ama kasii qurxan ama kasii faa'iido badan insha Allah waxa idin leeyahay khayr barwaaqo isku ognahay maalmahan xoogaa waa kala mashquul insha Allah dib bacda fiidiyoyaasheen taxanino ahaan doonaan hadii Allah uu dalo raali ka noqdo marka soo dhawaada insha Allah khayr barwaaqo idin rajeynaa hadii Allah uu dalo raali ka noqdo maca salaam insha Allah soo dhawaada